السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So dhawaad arday waa macallin Maxamed oo idin mar labaad soo dhawaada. Today waxaan qaadanaynaa waa maxay waa maalinkii exercise-da. Exercise ayaan maxaa hadda maanta dhigan doonaa oo waxay noqonaysaa cashirkeena wuxuu noqonayaa wada layli buu noqonayaa insha Allah. Marka waxaan sameyn doonaa waxay tahay exercise waxaan qaadanaynaa 9 iyo exercise 10. Okay. Complete each sentence with one word. Okay. Erayadan waxaad ku buuxisaa each sentence walba waxaad ku buuxisaa waa maxay hal eray ayaad ku buuxinaysaa oo hal kelmad ayaad ku buuxinaysaa. Okay. hal kelmad ayaad ku buuxinaysaa. Okay, oo ah kelmadaha aad soo qaadato waa maxay can, can't, do, you do not. Okay. Alright. Can, can't, do, you do not. Okay. Can, can't, do, you do not, ama does not. Okay, ama does. Okay. Erayaad soo qaadatay afartii waad ku buuxinaysaa waa can ama can't, do ama don't, does ama does not. Okay, ta koowaad anaga idin sameynay oo ah waxay ahayd xagga aad soo banaaneed he read umbad ku qornayso ma can he read, can he read waa akhriyi karaya. Okay, waxaan kaa doonayaa sagaalka kaleeto inaan insha Allah ku buuxiso aad yani mid walba erey ku habboon intii aad hor usoo dhigatay can ama cannot, do ama do not, does ama does not. Cid ku buuxin doontaa insha Allah. Markaana jawaabahan oo noo soo diri doontaan insha Allah. waxaad noogu soo diri doontaa Telegram baad noogu soo diri doontaa waa lambarkayga aad noogu soo diri doontaa insha Allah. Okay. xaggan waxaad samayn doontaan choose the correct word. Choose the correct word. ereyga saxan ayaad dooranaysaa. ereyga saxan ee ku habboon ayaad dooranaysaa xaggan. ereyga saxan ee ku habboon ee akhrintiisa ku habboon ayaad dooranaysaa. For example, can he read miyuu akhriyi karayaa. Okay, miyuu akhriyi karayaa. oo karidu waa maxay akhrinta waa maxay waa shay general ah soma akhrin. Okay, laakiin reading waa hadda ayuu akhriyaa may oo noqonayso. Writing waa maxay hadda ayuu qorayaa soma ama waa qoristii ama akhrintii. laakiin ing markuu ku daro waa maxay hadda wax soconaya soma ama waxay noqonaysaa noun bay noqonaysaa. Okay, can he read. Okay, sida kaasoo kale aan dooranay adinkan waxaan idinka doonaya inaad isku daydaan sagaalkan haray inaad mid walba ka ku habboon doorataan. kadibna waxaad noo soo diri doontaan insha Allah intaad soo wada qortaan jumladoo dhan oo isku soo xejisaan ayaad inoo soo diri doontaan oo waxaad noogu soo diri doontaan Telegramka. For example oo kale hadda ardaydan adinku book oo dhan site-da calaamadisan aydan soo diri karin waxaad samayn kartaa intaad kelmadaha kale do iyo does-ta kaad moodayso iyo is-ta kaad moodayso inay meesha ku habboon tahay unbaad kusoo qoraysaa caadi text-ka markaas noo soo diraysaa. For example haddaad like leedahay haddaad moodayso inay do meesha ku habboon tahay waxaad leedahay do she prefer brown or green pictures baad isoo diraysaa. haddaad istiraada does baa ku habboon does he prefer brown or green pictures on the wall waxaad isoo diraysaa taasaad isoo diraysaa. haddaad is leedahayna istad isoo diraysaa. macnaha waxaad isoo diraysaa jawaabtii ku qoran ama jawaabtii wadata ereygii aad dooratay gelisay ayaad kusoo diri doontaa insha Allah Telegramka. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa waa labada exercise oo kaliya insha Allah. intaan weekka dambe gudbi doono. marka weekkan oo dhan waxaan soo qaadanaa waa maxay afartii cashir ugu horeeyay afartii cashir ugu dambeeyay waxaan qaadanaa waa maxay sida loo isticmaalo can iyo count iyo sida loo isticmaalo waa maxay do, don't iyo doesn't. marka waxaan idinka doonayaa yani inaad inta soo practice garaysaan soona dirtaan jawaabaha insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.